محمد aad ma santay marka hore wasaad sheegtay xaaladda gobolku way degan tahay hase haatee waxa jirta isgaarsiintii oo go'an ilaa shalayto wax baabuur isku soconaysa ma jirto dhinaca kale khadka isgaarsiinta xagga internetka way go'an tahay inkastoo magaalada Saylac haatan xaaladdu degan tahay shalay waxa laga daadgureeyay ilaa 500 oo qoys oo kamid ah dadkii magaalada Saylac deganaaday maamulka gobolka iyo kuwa degmada Saylac ay ka daadgureeyeen loona kala daadgureeyay tuulooyinka Toqoshi iyo Ceelgaal iyo Ashcado oo ilaa haatan ku sugan yihiin ma garatay waan gartay sida kale waxa jirta dhinaca magaranaysa roobabka xalay dahay waxay saameyn badan ku yeesheen magaalada Garbada Dar oo haatan ay ka soo gaarayaan inta la xaqiijiyay ugu yaraan 5 qoys oo laba kamid ah haween yihiin 3 qofna ay walaalo yihiin oo daad ku qaaday isla markaana maanta meydkoodii intii ugu dambeysay la helay ayaa la sheegayaa halka mid uu magaranaysa luqaya ku qaaday daadku oo oday la soo xaqiijiyay odayna ku qaaday meesha la yiraahdo Carrawareen oo agteeda magaalada Garbada Dar iyo 3 qof oo ku qaaday deegaanka la yiraahdo Waraabo Dareere oo Garbada Dar agteeda 3 qof oo walaalaha laba hablood iyo wiil inta la sheegay dadka intaas ayaa dhimatay waxa kale oo la sheegay xoolo ku dhow 900 oo neef oo isugu jira geel iyo ari ayaa ku leeday dhammaan deegaanada gobolka Sanaag inta aan la xiriiray waxa kale oo la sheegay dhinaca koonfurta xalay dabayshii ugu dambeysay 3 gal habeenimo waxa ku dhifatay deegaanada Cabdulqaadir iyo Habaas iyo Xariirad oo la sheegay inay dumisay magaalada Xariirad 3 guri isugu jira sandaqada iyo guriga dhagaxa asaatee wax dad aan waxba wali ku noqon magaalada Habaas oo kale waxay ku dumisay 9 guri magaalada Cabdulqaadir waxay dumisay 23 guri oo ku jireen 4 meheeradood oo dukaano waaweyn ah laakiin lama sheegin wax dhimasho dhinacaas ka dhacday koonfurta ayaan ku soo sheegay hadda maxamed Cawaale bal waxaad kaloo faahfaahin naga siisaa ilaa haatan xaaladdu waa sidee roobabkii ma istaageen ma daadadkii uun baa socda waa sidee wali xaaladdu ilaa imka maxamed Kuraasow saaka markii waagu bariyay waxa noo soo baxday caadi ahayd ee lagu yaqaanay xagaaga magaalada gobolka Sanaag isla markaana badii aad u degan tahay dhinaca kale fadadkaana daruuri aad nooga kala dareeray nooga kala magaranaysa nooga kala jacayl aniga hadda kula hadlaya waxa ku xalimnaa tan iyo shalay duurkii waxa ku xalimnaa dooxa u tahay bariisle la yiraahdo u tahay Toqoshi iyo magaalada Looyacado saacad ka hor ayaan ka soo wareegay dhinaca badda aniga iyo maamulka gobolka Sanaag barasaasi gobolka Mowlid Maxamed Nuur oo maxal saacada ku wada xalimneen وأصلاً في يوسف ورجني دين عبادة ونهض قصة ده مجال زينة وشلة تفتحني أنا بكون مغني كل مدينة مجال ساعة جبوتي وضفت الوقت وتقابل أي رودي وحلا بس وقاعد مدرسة. وانقرتي. سيدو خلينا كواحد يلا رياض كلا صوب كلا بورا كده يا واحد سامين كل شيء نسكت صعد في جديدة إيه كمان كان جبتوع عيال توحي كل يوم صعداء ساعات عيال ما يمكرتوا ساعاتنا نطبق واحد من ساعات توحي في سنو صعداء ولا في السكومة يمكران سيدو خلينا توحي واحد صعداء ورابط وحنا سامين كل شيء سكومة تكي كل حنا تخشي بنا عبد الرسول أياك إيه توحي برسول وزنا اللي يعدي كل اللي توحي اللي يعدي سكومة صعداء توحي أسوق علي جارجي وسرد مالية مجال اللي يعدوا إلى هذا الرسول كل حاتم مجال السلع توحي هذا كمرة أيه توحي اللي في المين هذا بوسعداء توحي اللي عشورين كل هذا بوسعدان جاديسي يعني سيدي مجال صار بقاش كي يكسر عليه هرجيسي وجاله وأفرط الجاري لهم الموضوع حتى عدلين مجال السلع كتم بدعيسة وحلولنا بقى إن أنا تطبطت بصوص ولا حتى كنت يكرنين مجال السلع أو السلع كله خطيب قطان. أنا مركن الله لي ما يركه degmada Lughaya Cabdilaahi Cali aw Nuur waqtigaasi oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Gargaaro Bari waxaan uu maayirku u sheegay halkaasi lagu aasay meydadka 9 qof oo waxyeelo ay soo gaarsiiyeen roobabku bal aan markan aan la hadlo Maxamed Cabdilaahi Cali aw Nuur maayirka degmada Lughaya xaaladda haatan bal maxaad iga faahfaahin adiga haysa adiga siin kartaa wallahi walaaleen hadda ma santaa xaaladda dhamaanteed kama war hayo وأنتينو دمنا دوم يكون من أنتين كان كل الله يهمك وبدر على المسكوت على هالكان شوفوا كل يوم كي على سنة ما تدور بعيد دوني ناس عن شوفوا يوم يلا كل يوم بحين تبين ترى وبحين أنت عن هيوم قال كان شوفوا على واقعية تقال خط مسكوت هذا يلا والله صيا تقال كان قصد حباشو يلا الله دريري وحكروا مكان الله يو تبي قطة كلنا ومكان ينو dhimasho lagu tirinayo xalay dawladda ku qaadanaysa ay deganayeen miiskoodina lama hayo shan qof oo kala dhaawacnay halkan ay yaalaan magaalada dhexdeeda meel lagu daweeyo ma jirto dhakhtarkii iyo isbitaalkii iyo magaaladii oo dhan waxa gudbiyay roobkii waan gartay marka wallahi goobaha kale ee intaan warbixintooda inay xeebta ku dhowna waxaan filayaa inay sidan ka sii daran yihiin meesha aan joogay badda waxa u jirtaa 250 kiiloomitir dhow jirtaa Gargaaro Bari baa la yiraahdaa halkaas waa meelaha imika khasaarahan kaaga waramayo uu ka dhacay inta ka soo hoosay xagga badda ka xigta sida aan filayo wax noolin loogu tagay way yar tahay waan gartay
marka walaal warbixintu waa sidaa xoolama noola dadkii meydkoogi waanaga kaaga warramaya hadda 9 qof baa meydkooga intaa uuna soo gaadhay oo magaalada iyo hareeraheega un ka dhacday meesha gargaarada ilaa iyo balle meesha la ilaa iyo 9 qof ku kala dhinteen 7 qof meydkooga lalaayayna eeriya gargaarada dadkii xoolo dhaqatay deganaa weeyaan xalay soo waxa la tagay daadadkii waan gartay marka miya wax gurmada la isuma fidin karo miya oo magaaladu gabi ahaanteed way kala xiran tahay waa la kala xiran yahay tuulo talaabi kartaa ma jirto kala subaxii waxaan isku dayay inaan lugayo tago halkaan joogo markaan ka baxay 12 kilomitir iyo dhammaan socodkii gooyo gaarigii naga degay wadankiina daadba harqiyay xalay waxaan u weyday meel cidla ah oo aan cidi joogin taaka lug baan ku soo noqday halkaan joogaan ugu soo noqdo hadda galabtan waxaan soo gaaray labadii waan gartay marka walaal ma jirto bixinteeda aan ogaan karaynaa way adag tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maayarka degmada lughaya cabdilaahi cali aw nuur oo khadka telefonka kula xidhiidhay markana waxa isaguna mar kale ii diyaar oo khadka telefonka isagana aan ku helay maayarka degmada baki maxamed axmed caateeye waxa isaguna uu sheegayaan dhimashada 7 qof halkaasi ay jirto deegaanada ku xeeran degmadaasi bal marka hore waxaan weydiinayaa maayar xaaladda degmada baki iyo guud ahaanba deegaanada ku xeeran maxaad faahfaahin ama warbixin aad ka haysaad iga siin kartaa tani dhacday waa la noo sheegay digniintana waan maqlaynay runtii xoolaha iyo dadka meelaha taaga u saaran la lahaa oo duxida ka baxaya dhulka hooseeya arrintaasi dadka inta badan way maqleen waxaan kuu sheegayaa roobka imika daay raastaxaadii buu bilaabmay wuu qaaday mar laakiin marka laga bilaabo 8 ilaa xalay 12 barkii si xiriir u daayay maxaa waxyeelada imka la oran kartaa waxyeeladu geystay haddaan ka warramo marka hore horta ugu geystay khasaare nafiya maalba leh waxa weeyaan 4 qof waa dhimasho oo 3 daad baa qaaday sawarka ku hayno dhul laga fog weeyey qof laaqal baa ku dimay qoyskaas 3 daad ku qaaday way isku qoys oo nin iyo gabadhiisii iyo aduu qoyskiisii waan gartay ninna guri baa ku dimay oo isaguna u dhintay oo la aasayaa 4taasi waa dhimasho xagga dadka intaan hayno weli waan gartay inkastoo dhulka la fog yahay oo telefoonadu baktiisan yihiin oo hadba meel wax ka soo dhacayaan oo dhulka aan la isku socon karin oo amba buuro diban yahay amba dhul degan yahay gaadiidna aan u soconayn waxaan kuu sheegayaa kale khasaare maal oo aad u baaxad ballaaran ayaa gaadhay dadka dhulku waa dhul beereed buu badaya dooxooyinka waaweyn oo dhulbiyooda beerahaasi dooxaasi dhan walba 200 mitir buu u kacay way go-een sharci la beertay waxba kama jiraan saaka taasi nin aan ka maqan oo aan joogin lama suuran kara runtii roobkii mise cishu idin hayay markaa roobku 3 maalmood buu nagu daayay annaga laakiin daraad intuu daayay buu naga qaaday shalay aroortii 8 buu dib u bilaabmay ilaa xalay 12 barkii lagu daayay ilaa imka miyuudan hayaa imka uu naga qaatay yahay in soo dul joogo waxaan ku sheegay xoolaha baraf baa ku fadhiistay dhulka xoolo dhaqatada dadku reer guuraagu badan yahay ariga geel baa dhulka lagu dhaqdaa ariga geeli dhiigu ma fadhiisto arkagay xeryaa waxba ka soo bixin saaka waan gartay khasaaraha ballaaran buu geystay nin aan joogin looma sawiri karo runtii khasaaraha dhacay waa khasaare aad u ballaaran waan gartay dhimashada dadku waa 4 qof intaan hayna weli maxaa khasaare kale aad oran kartaa isu socodkii dadka iyo wixii oo dhan wax nibay ma sahaysaan weli wax gurmado weli idin soo gaadhay waxaan kuu sheegayaa degmada 4 koonada bay ka tahay dhexdooda isku socon karto waa wada buur iyo laag iyo dooxo intii way go-an yihiin ta kale boorma gaari noogama iman karo gaari lagama tegi karo wadada markii hore waxnayd xalay ku dhacay shalay buurihii baa ku dumay wadooyinkii baa go-ay kii boorma ka soo baxay jaamacadda camuudi soo dhaaf waay runtii markaa taasina waa caqabad kale oo isku socodkii iyo gurmadkii wixii gudda la samayn lahaa ayadana caqabad ku noqotay marka haddii ilaahay ilaahay baa gurmad laga sugi laakiin arrintu arrin aad u cakira wey degmada baki ka jirtaa degmada kale warkama hayaano degmada luqaya 8 baa noogu dambaysay warkeedaba